maxamed xaaj faarax cali oo kamid odayaashii waxgaradka gobolka Saraar ayaa deeq lacageed ku wareejiyay qoys danyar oo dhawaan inan yar uga dhimatay gobolka Saraar raadkii diifta ay sababtay abaarta baahsan ee ka jirta gobolka Saraar. deeqdan lacagta oo dhamay $300 Mareykanka ayaa waxa soo diray walaalo muxsiniin oo ku nool qurbaha isla markaana ka soo jeeda gobolka Saraar. waxaana maxamed xaaj faarax cali deeqdan si rasmi ugu wareejiyay qoyskan danyarta oo aad ugu tabalaysan gudaha magaalada Caynaba. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta ay bishu tahay 29 anigoo maxamed faarax cali ahna oday kamid ah odayaasha deegaanka Caynaba waxaan joogaa gurigii muddo sii horeysay ay ku dhimatay inan yar kaga dhimatay magaciisa la yiraahdo maxamed xuseen iyo islaantii baan ag joogaa ayaan ag joogaa aniga waxaan ka imi Hargeysa waxaan halkaa u soo maray qadar yar oo lacag ah oo lagu soo dhiibay reerkan oo samafala oo soo dhiibeen dad qurba joog ah oo kooban oo midhadha dadkaas oo ah dad muxsiniin ah oo bilaabay waxa markii dii hawsha ay maqleen reer kud magaca guud waa reer balaaran laakiin reerkan inantu ka dhimatay oo laakiin ahayn qof ahayn family uunde ama inan ha noqoto ama oday ha noqoto ama islaan ha noqotay reerkii de muuqaalkooda la arkay lacagta waxa soo bixiyay khayralas iyo dhalinyaro qurba joog oo habliyayna isugu jirta oo family-gan ka soo jeedo de reer marka si guud loo yiraahdo reer badan ka soo jeeda laakiin group caafi baa la yiraahdo ayaa soo uriyay lacagtaas waa $312 soo dhiibeen shidaalkayga iyo qarashkayga ilaa Hargeysa aniga isku qaba waxaan doonayaa inuu iga gudoomo $312 in aabaha reerka iyadoo reerku ay waxa wada leeyihiin $312. geesta kale qoyskan danyarta ee lagu wareejiyay lacagtani ayaa walaalaha muxsiniinta ee ku nool qurbaha ee u soo diray lacagtani uga mahadnaqay deeqmani lacagta ay soo gaarsiiyeen xilli ay baahi weyn u qabeen. dadka walaalaha bismillaahir rahmaanir rahiim dadka walaalaha ee lagu soo caawiyay waxaan ugu ducaynay qaar baan ugu ducaynay barakaan ugu ducaynay boos buuxdaan ugu ducaynay dad baan ugu ducaynay nabadgelyo ugu ducaynay Allah taageero لا ماشي كذا سرقة هي قبل وهي صادري كاني الله بركة ملك جوجان الله بركة نفتي مالك يا دونك الله بركة حق الله بركة الله غيرات الله سيو ولا ريال لعكتانو ترينو إن الله كاني iyo qabaayilka isku duuban ay noo keeneen wixii soo diray Allah barakeeyo. sidoo kale maxamed xaaj faarax cali waxa uu deeq raashina ugu deeqay isla markaana ku wareejiyay qoysas danyar oo abaartu saameysay kuwaas ku nool gobolka Saraar waana kan isagoo faahfaahin ka bixinaya deeqda raashinka ee qoysaskan ugu talagalay. anigoo magacaygu maxamed faarax cali waxaan halkan ku gudoonsiinayaa jilib kamid ah jilibka reerka ah 10 qoys oo mashruuc aan anigu jeebkayga ugu soo iibiyay iyo 10 min hal kiilo oo timira 10 kiilo timira iyo 10 shubaan aniga oo maxamed faaraxa reer kamid ah family-gan ka dhashay oo samatar baala la yiraahdo waxaan ku wareejinayaa arinta iyada ana ninka la yiraahdo Ismaan Jaamac Timir taas waa mid aniga xaggayga anigu ugu soo tala galay 10 kiishna waxay ku yaaleen bakhaar bay ku yaaleen markaan ku wareejinay 5 kiish ku wareejinaya 10 qoys baan ugu soo tala galay hadii 10 qoys reerka ay halkan yaaliina 10 qoys oo kala siinaysa hadii kale wixii yaalana mashruubaad ugu tala galaysaa kiilo timir carruurta markay guriga ugu tagto. alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ka gudoonay raashinka aad sheegtay ilaahay ajar iyo xasanaad ha kuugu bedelo waana kaaga mahad celinaynaa alxamdulillaah أنا وقدومني إلهي أنا كنا دعاء فرح نوقديكو وحي إسلام هيك له واحتري جنا وإحنا تجرب ونبهنا. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن قابت لو بحنا يصدق تدك صباح استإلهي وحكرت شيء إن ماشي كسو سارين ودوام مريان خيرها ودوام مريو محيي لي نبينا صلى الله عليه وسلم حمالين كستوى حسود الله من ملك بدنا الدعوة وذا منها بارب وذا كالدعاء وحولي اللهم أعدي منفقا خلفا إلهك وحبهنا وناقي خيري ودوامري اللهم أعدي ممسكا تلفا إلهك وحبب بحنين تلف يماركتي وحرعان ودوامري إليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال النبي حري صدقة ما نقصت صدقة من مال بل تسيد
صدقة مالك من نقصان مسوي سيادة ساعة مركان وحن ليه هلا بس ما أنت صدقة نقفك وحري كريو بتصو إني كسمر دون تلمو جواي وحل باهن قفك هذا حسابة ما أنت واحد كيلا 10 لو والله